halkan waa deegaanka Sabiib waxaa qiyaastii uu 10 kiiloomitir u jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maalin ka hor halkan waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya oo garab military ka helaya ciidanka AMISOM iyo Al-Shabaab kadib markii ciidamada dawladda ay dagaal saf balaaran ah ku soo qaadeen deegaanadan oo labadii sano ee u dambeysay ay ka talinayeen xarakada Al-Shabaab dhowr iyo 10 neef oo ari ah iyo agab kale oo uu soo dhiibay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo howlo shaqo u jooga degmada Wallaweyn waxaana ku wareejiyay deeqdaas lagu dhiirigelinayo ciidanka dawladda mas'uuliyiin iskugu jira maamulka degmada xubno ka mid ah ku xigeenada maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ugu horeyn waxaa TV-ga Universal kula hadlay goobta gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim xamdi saakir toole hadda waxa ku sugan maamulka degmada Afgooye dawlad goboleedka koonfur galbeed kan gobolka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka haduu ilaahay ma bulshada tuulooyinka Sabiib Caanoole iyo Boordilo waxaan ugu baaqnaa inay nagaadaan handadaadii iyo propagandadii iyo wararkii been abuurta ahaa oo kooxaha nabadiidku ila taagnaayeen aysan waxba ka jirin hadduu alla idmana aan deeq maxal lahayay raashin iyo daawo iyo caafimaad isugu jira aan u keeni doono hawlihii waxbarashada aan u keeni doono mashaariic horumarineed aan u sameyn doono waxaan ugu baaqaynaa inay nagaadaan joogaan wax dhibaato ka dhacaysa malahan waxa idin imaado wiilashiin waxa idin imaado walaalihiin waxa idin imaado waa dadkii oo runaantii idinka ka dhalateen idinka u dhalateen marka wax dhibaato gudoomiyaha ku-xigeenada gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Carabi iyo Xasan Abuukar ayaa dhankooda tilmaamay in ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin ciidanka la wareegay goobahan oo maanta buundadana keenay buundada Sabiibna keenay oo nabadda iyo amniga iyo maxaa la jiray dadka shacabka ahaa oo dhibaateysna intaan ay qolooyinkii nabadiidka ahaa ay kur joogeen waxay u qaybiyeen maxaa la jiray raashin ay gaarsiiyeen haddana waxaa diyaar leeyahay in daawooyin la gaarsiiyo ilaahay ka soo koob ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybihiisa kala duwan oo bangar raftire oo leh AMISOM leh ay xoreeyaan deegaankan kana xoreeyaan nimanka nabadiidka ah taas ilaahay weyn ka soo koob waxa suurtageliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo walaalahood caawinaadii ka helayeen AMISOM annagana saasi lamida ka maamul gobol ahaan waxaan u soo gaarnay inaan xaqiijino deegaanada la qabtay iyo bulshadu siday u arkaan isku xiri lahayn ciidamada iyo annagoo wakiil ka ahayn buuxa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo wakiil buuxa uga ahayn booqashadan maanta ku soo gaaray deegaankan aad iyo aad ugu faraxsanahay ciidamadu waxay sameeyeen gargaar ay fidiyeen dhowr jeer oo hore ciidanka dawladda ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose balse waqti kooban kadib waxaa dib ula wareegi jiray xarakada Al-Shabaab kadib faarujinta ciidanka dawladda goobaha ay la wareegaan balse hadda lagama hordhici karo sida uu noqon doono xaalka Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose deegaanka Sabiib